السلام عليكم. haddii aad tahay dadka filimaanta jecel waxaan kugula talin lahaa in aad daawatid filimka The Heart of Dog ee uu soo saaray Vladimir Porchkwa. dadka filimkaas daawaday waxay og yihiin in Dr. Boransky inuu qalliin u sameeyey tuug dilaa ah kadibna uu u geliyay qalbi ay. laakiin ka waran haddaan ku dhaho arrinta maanta filim way ka weyn tahay. Sergio Viranov waa dhakhtar qalliin oo jinsiyadiisu Faransiis tahay. wuxuu noolaa dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad inta u dhaxaysay. wuxuu helay caanimo ballaaran iyadoo maalqabeennadu ay ku bixin jireen hantidooda si ay u helaan dawadiisa. waayo dawadiisu ma ahayn mid ka daweyn jirtay xanuunada oo keliya ee waxay sababi jirtay in ay dadku dareemaan firfircooni iyo dhalinyarnimo weliba. haddaba aynu isku dayno in aan wax ka ogaano shakhsiyaddan. Sergio Viranov waa magaca naanaystiisa, laakiin magaciisa dhabta ahi waa Samuel Abramovich Albaran. wuxuu ku dhashay Ruushka markay da'diisu ahay 18 sano. ayuu tegay Faransiiska si uu wax uga soo barto. waxbarashadii ayuu ku dadaalay isagoo helay shahaado caafimaad. caawimaad uu ka helay biologistihii Faransiiska ee caanka ahaa Alexis Scarlet, kaasoo xilligaas ahaa mid ku guulaystay jaa-isada Nobel. isagoo jaa-isadaa ku helay maadaama uu caan ku ahaa hematological and organ transplant quality. iyadoo xilligaa madaxda Faransiisku caawimaad ayna siin jirin dadka asal ahaan ka soo jeeda Yahuuda. haddana wuxuu noqday mid ka mid ah doktorada ugu caansan dunida. wuxuuna intaa kadib tegay Masar isagoo dhakhtar ka noqday qasriga Sultaan Cabbaas kii labaad. intaa kadib wuxuu sii xoojiyey in uu wax ka fahmo taranka aadamaha iyo waxa loo yaqaano transmission genetic traits-ka, isagoo daraasaad badan ku sameeyey siduu wax badan ugu ogaan lahaa. waxay kulmeen Ustaad Charlie Edward Brown Zagan. Viranov iyo Ustaad Charlie waxay sameeyeen daraasaad cilmiyeysan taasoo ku hogaamisay natiijo ah u soo celinta dhalinyarnimada jidhka bini'aadamku in ay suuragal u tahay in qanjidhka daanyeerka da'da yar lagu beero qofka. una kaga dhabeeyey isagoo qalliin ku sameeyey dadkii ka cabanayay cudurrada qanjidhka thyroid. waa waxaan caqliga galayn, laakiin wuxuu ku soo hooyey guulo ballaaran iyadoo muddo yar gudaheed ku faafay guud ahaan caalamka. markii hore uu qalliin ku sameeyey dadka da'doodu weyn tahay, taasoo siisay firfircooni iyo nashaad. guulo isku xigay kadib wuxuu go'aansaday inuu u beddelo qalliinkiisa leefalka labaad. waxayna ahayd 1920kii uu qanjidhka dadka beero daanyeerka. culimadaa kadib dadkii waxay sheegeen in ay dhalinyarnimo dareemayaan. haddaba ma waxaad is leedahay dadka u imaanaya qalliinka rabay ayaa yaraa? jawaabtu waa may. waayo waxa u imaanayay ganacsatada hantida leh oo tiradoodu aad u badnayd. qalliinkan markii hore waxaa si rasmi ah loogu tijaabiyey Switzerland, Faransiiska iyo Jazaa'ir. markuu qalliinkaas horumaray wuxuu u gudbay Maraykanka, iyadoo cid walba rabtay in ay dib u dareento dhalinyarnimadoodii. wuxuuna sidaa ku noqday maalqabeen. 2 sano gudaheed wuxuu sameeyey wax ka badan 1,000 qalliin. dadka ugu badan ee uu qalliinka ku sameynayay waxaa ka mid ahaa Garrett McCormick, gudoomiyaha golaha agaasimayaasha shirkadda warshadaha caalamiga ah ee Harvesters. wuxuu leeyahay Mark Stolberg oo xilligaa ahaa isaguna dhakhtar qalliinka ah. waxaa loo yaqaanay wakhtigaas qalliinkan Power of Monkeys. 1922kii waxaa laga qoray qisadiisii koowaad, waxaana qoray qoraagii Bertram Jayden. waxaad isweydiinaysaa waayahee waxaas oo daanyeer ah ee qalliinka la mariyey xaggay joogeen? laakiin waxaan kuu sheegayaa xitaa in uusan u baahnayn in uu soo ugaarsado, waayo gurigiisa dhexdeeda waxaa jiray meel gaar u ah daanyeerada loogana keeni jiray guud ahaan caalamka. kadib wuxuu isku dayey in uu isla tijaabada ku sameeyo dumarka. bilowgii dhibaatada bilo kadib, iyadoo wax walba caadi yihiin, ayaa waxay bilaabeen dadkii qalliimada maray in aysan wax natiijo ah aysan ka hayn qalliinkii. daraasaad ay sameeyeen culummada sayniska ayaa sheegay inaysan murqaha daanyeerku la xididoobi karin kuwa bini'aadamka, iyadoo taasi ay keeni karto dhibaato caafimaad. laakiin su-aashu waxay tahay ka waran bukaanka ku qanacsan natiijooyinka? taas ma waxay tahay in qalliinku waxtar u leeyahay kiis qaas ah? jawaabta waxayna siinayaa dhakhaatiirta cilmi nafsiga, waana ifafaale ay sameeyeen astiiniyada dawadu, iyadoona wakhtigaas jawaab loo hayn. dhibaatooyin uu dhakhtarku kala kulmay naasiyiinta ayaa ka dhigtay in uu Faransiiska ka tago oo uu tago Washington. dadkii qalliinkaas rabayna ay iska daayeen maadaama uu kuwii hore ay natiijo ka hayn. markay da'diisu ahayd 58 sano ayuu galay shil ka dhigay mid fadhiista, wuxuuna dhintay shirkaas kadib 2 bilood. shilkaa dartii ayuu u dhintay maadaama uu shilkaas sababay dhiig xinjirowga sanbabada. intaas ayaan idiin soo bandhigay. waan rajeynayaa inaad ka hesheen. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar, asxaabtaada la wadaag inuu yahay videoga dambe. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.